ها waad ooyi doontaa qisadan markay dhagaha ku soo dhacdo haddii aad inuu wax weeye qof qalbigiisu ay naxariis ku jirta aad tahay waad la ilmayn doontaa aniguba markii aan dhegaysanayay qisadan waan ilmeeyey oo indhahayga ilma ayaa qoysay qisadan waxa iiga sheekaysay oo si toos ah igaga warantay inantii ay qisadani ku dhacday waa xanuun waa darxumo waa dhibaato ay soo martay sannado badan oo nolosheeda ka mid ah hadda waxay inantaasi ku sugan tahay dalka Mareykanka waana barta aniga igala soo xidhiidhay marka ay qisada ila wadaagayso waxay igu codsatay magaceeda inaanan sheegin sidoo kale magaalada ay qisadaasi ka qabsatay iyo deegaanada ay qisadaasi ka qabsatay midna inaanan sheegin laakiin waa magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaalidu degto maadaama markaynu magaalada sheegno dad badani ay qiimeyn karaan ay odhan karaan waa reer hebel ama waa qoladaas la sii baari karo oo lama ogaan karo qofkaasi qof uu yahay haddaba qisadani qaabka ay u dhacday qaab uguma maaha markaynu xaqiiqada ka hadalno way jiraan dad badan oo ay ku dhacaan qisooyinkan iyo qaar la mid ah waxay tidhi anigoo aan garaad fiican lahayn ayay hooyaday dhimatay allah u naxariistee hooyadeed waxay geeriyootay iyadoo aan garaad fiican lahayn oo yar oo carruur ah dad kalena may dhalin waayahay haddaba markii ay hooyada dhimatay waxaa haysatay oo soo korsatay ayeedeed hooyo wax habaryar ah may lahayn laakiin abtiyaal bay lahayd hooyadeed lamay dhalan habaryaro kale lamay dhalan oo iyada habaryaro ah laakiin abtiyaal ayay hooyadeed la dhalatay rag unbay hooyadeed la dhalatay ayeedeed baa markaas soo korisay ilaa iyo da-da 10 sano markii ay soo gaadhay ayay ayeedeedna dhimatay allah u naxariistee abtigeed baa markaa kaxeeyey oo markaa magaaladii deganaa ayuu soo kaxeeyey wuxuu u keenay reerkiisii xaaskiisii ayuu u keenay inantii yaray waad garanaysaa inan yar oo rajinimo ku soo kortay oo reer miyiya malcamad hore looguma darin iskuul hore looguma darin aqoon maadi iyo mid diinitoona lama barin da-deedu waa ilaa 10 jir ilaa 11 jir meelaha markaas waxaa la keenay guri magaalo aanay afgaranayn iyo magaalo aanay garanayn inta badan ama dumarka qaar badan oo ka midi waxa uga dhaqanaa qofka aanay dhalin ee guriga kala nool inay ka faa'iideystaan xooggiisa sidoo kale ay ku tacadiyaan waxba aanay siinin nolosha ay ku ciqaabaan inantahay maalintii ay gurigaa timi abtigeed waxaa isaga bilaabmay ciqaab joogto ah iyadoo toogu weyn ay tahay shaqada guriga gebi ahaanba inay iyadu qaban jirtay iyadoo reerku ay hablo kale leeyihiin haddana hadday noqoto dhar la maydhayo iyo hadday noqoto cunto la karinayo iyo hadday noqoto daarad la masaxayo faraha looga qaado macnaha qaab uu ku jiro gumaysi hablaha kale ee ay ilmaabtiga yihiin iyagoo qolalkooda jooga ayaa markay iskuullada ka soo rawaxaan ayadu dharka u maydhi jirtay oo u soo diyaarin jirtay oo ay cuntada u soo karin jirtay iyadu wax iskuulana ma dhigin jirin wax malcamadana ma dhigin jirin abtigeedna ma geyn ayeedeedna reemihii bay haydo markii hore malcamadii iskuultoonna may geynin markii ay xoogaa kortay ee 14 jir iyo 15 jir meelaha ay soo gaadhay intaasna weliba ay u dheerayd gabadha oo ayada ah ee abtigeed haddii ay wax qalado inay aad u garaaci jirtay oo dhagarin jirtay oo ay ku dili jirtay maxaad waxaan u xumaysay halka ay seexan jirtay ay deganeed waxay ahayd kijada guriga kijadiisa ayaa hooy u hayd go ay huwato way haysatay laakiin waxay gogolato may haysan sawirka kijada ayay seexan jirtay waa loogu talagalay
alla naxariis daranaa dadka qaarkood ilaahiyaba ku keenaya abtigeed waxaas oo dhan ma oga laakiin waxaaba dayaca weynaa inaanu goob waxbarasho geynin oo sida waxa weeye ubadkiisa wax loogu soo iibiyo aan wax loogu soo iibin oo ay inantayni gooni ka tahay oo ay ka bahdelan tahay carruurta kale oo ay islaanta gurigu waagii baryaba ay rarto oo ay xamaal u tahay markay doontana ay dhegadayso oo ay garaacdo marka ay waxbayso nolosha caynkaasa ayaa waxay ku gaadhay qaangaadh 14 jir ilaa 15 jir meelaha ah markii ay inantayni qaangaadhay oo ay sidii weli kijada u seexanayso ayaa waxa ku soo kordhay iyadoo markii hore waxa weye cidhir ku jirtay nolosheedii ciqaab kale oo weyn baa ku soo kordhay mid ka mid ah inamada guriga joogay ee islaantu dhashay ee haddee laba kuro yahay ay ilmaabtiga yihiin ayaa habeenkii kijada ugu gala wax kasta oo uu yeeli karayo oo dhibaato ah wuu gaadhsiiyaa waa ina yar oo cabsi iyo baqdi lagu abuuray oo nolol waxa weeye daryeel la-aana ku kortay oo haddee laba ku rooyahay qalbigeeda murugo iyo ciil ay buuxdhaafiyeen muddo waxa weeye haddee laba ku rooyahay sanad iyo dheeraad ah ayuu ninkaasi intahay kijada habeenkii ugu gelay oo wixii uu doono u geysanayay halkaasuu ku farxumeynayay waxay sheegtay inay ogaayeen inamada kale hablaha ma caddayn kara inay ogaayeen laakiin inamo kale oo ay walaalahaayeen oo guriga joogay way ogaayeen cid waxa weeye aan u sheegi karo oo iga qaadanaysa haddii aan soo hala qaadana waxaan ka baqayaa bay tahay in lay dilo marka way qaangaadhay laakiin qaangaadh nafla maaha waa inaga 15 jira caynkaas siday ahayd ayaa waxay qaaday inantii ilmay qaaday markaa ilmihii qaaday waxa weeye haddee laba ku rooyahay way xanuunsatay cid allaale cid dhakhtar geysi ma jirto xaaladdeed waxay gaadhay serious maadaamadu waxa weye qof nafaqadara ay haysan tahay waxa weeye iska silicsanayd haddee laba ku rooyahay markaa xaalad kalena ay kusoo kordhayoo dee iyadoo yar ilmo yar inuu caloosheeda galay aad bay u bukootay dhakhtarna lama geyn waxaa soo baxday markaa caloosha baa soo baxday oo soo muuqatay markaasi waxa weeye haddee laba ku rooyahay islaantii gurigu ay dareentay xaaladdu inay duwan tahay oo ay inantayni xaamilo tahay waxay soo qaadatay tib xawaash weyn oo ataa waxa weeye haddee laba ku rooyahay dee lagu tumo xawaashka lagu tumaa waxay tidhi sheeg cidda sida kuu gashay sheeg way sheegtay may warwareeginba intaan tibi waxba laysla soo gaadhin ayay sheegtayba waxay tii waa inankaaga hebel hadalkaas markuu afkeeda ka soo baxay ayay ku bilowdayba tibtii inamadeedaad hafraysaa taasaad keentay wax allaaliya wixii ay ku dhufan karaysay way ku dhufantay meel kale waxa weye inantan u kacday meel kale ay qabataa midina ma jirto iyadoo laga maqan yahay guriga sidii ay doontay intay u garaacday oo ay dabadda u soo saartay ayay tiri dunida ilaahay meel ka gal araggaaga kuma arki karo ma sheegan kartid waxaad sheegaysaan afkaaga lagama maqli karo inantayri intaasoo sanadooda guriga ay joogtay xitaa waxa weeye sekada ka dambaysa kamay laaban magaalada ma kala garanayso gurigii way ka baxda abtigeed ma oga waxa ku dhacay ma oga laakiin islaanta iyo hablaheeduba arrintaa way ogyihiin iyo ninkii waxa weeye waxa ku sameeyey o dhan way wada ogyihiin
way iskaga baxday gurigii habeenkii meelaha waxa weeye dadka darbi jiifta ay u hoydaan ayay isugu hoyatay dhowr habeen meelaha ay darbi jiiftu seexdaan ayay seexanaysay qofte waxa weeye hadee laba guriga markii hore awlo ay dee meel silaca iska seexan jirtay haddana xaaladan dadka waxa weeye daroogooyinka isticmaalaya ee balwadaha leh ee waxa weeye hadee laba guriga suuqa garanaya xitaa si wax looga soo boobo looga soo cuno garanaya dee may ahayn iyadu oo qof gaajada xamili karaya may ahayn laba saddex casho markii waxa weeye hadee laba guriga yahay xaalkeedu uu noocaa ku jiray wax naflan aanay cunin oo ay waxa weeye bakti qarka u saaran tahay ayay iska calool adeegtay oo waxay kusoo dhex dhacday meel sariibada oo qudradda iyo hilibka lagu iibiyo islaam bay markaa u tagtay waxay tiri waxaan ahay riirmii baan ahay way warantay adigu reerkaasaan la joogay bannaankaa la iisoo tuuray meelaan ku noolaaday waxaan cunatoonna ma hayo gaajana way haysaa islaantaas islaan naxariis badan baa ahayd ilaahay khayr iyo xasanaad badan ha siiyo islaantii inantii way soo dhaweysay waxay cuntay siisay ma shaqaysanaysaa bay ku tiri xooggaaga wax ma kula soo baxaysaa haa bay ku tiri islaantu markaa waxay haysatay koryoon ay hilib ku iibinayso iyo mid ay khudrad ku iibinayso kii khudraddii markaa u dhigto ku tiri kan iibi weliba si wacami waxa weye u kala bartay muddo ayay kala baraysay sidii wax loo iibinayay markii dambena farahay uga qaado waxay tii adigu wado habeenkiina islaantii gurigeeda ula hurda tagtaa subaxiina way la soo shaqo tagtaa isbeddel badan markaa waana xaamilo waana ogtay islaantu waxaan oo dhan isbeddel badan ilaahay baa u barakeeyey isbeddel badan ayay ku samaysay oo waxa weeye haddii laba ku roon yahay ay ka heshay koryoonkii ay khudradda ku iibinaysay sidii waxa weeye oo ladanoo alxamdulillahi ku jirta ayay ku umushay inankeedii ugu horreeyey dhaqaale fiican ayay heshay ilmaheedii way korsatay ilaa iyo markuu 3 sano 4 sano meelaha marayay oo uu nin roon yahay ayay kaxaysay dee magaaladii reerkoodii wixii garanaysaa ayay kaxaysay oo waxay u geysay reerkoodii markaa reerka u geynayso waxay ku talagashay inay tahriibto oo marka ay tahriibayso wey iyadoo markaas dee qof weyna way aragtay shaqaysatay islaan waxa weeye dili karaysana aanay jirin ayay inankii gacanta ka saartay islaantii u ayeedahay waxay tii inankaasi waa inankii inankaagu dhalay haddaad doontaan dhiigagii wixii laga qaadi jiray ka soo qaata anigana ha ii joogo maanta intaa ka badan ma sii hayn karayee iminkana diile waalidkiiba tiro waa nooshiine intaasaa soo leekaysiiyey ii haya oo a idinkuna haysta islaantii iyadoo yaaban oo saa u eegaysa marna inankii marna gabadhii saa u eegaysa ileen way ogtahay waxa wey inankeedu dhalay isaga laftirkiisu og inuu dhalay way qabsatay inankii gacantii ka qabsatay islaantii way dhaqaaqday iyaduna waxay ku cigtatay dhinaca iyo nairobi mudday nairobi joogtay halkaasi waxa weeye haddii laba kunoon yahay shaqaabur yaroo kale kasii samaysatay in dooro sanawaadaabay ka shaqaynaysay waxay ka howlgashay sidii ay u heli lahayd basaboor kenyaan adigu wakti kasta oo ay ku qaadatay ugu dambeyn waxay heshay basaboor kenyaankii bay heshay inay markaa ku safarto
oo ay dal waxa weeye ay ku qabato kale ay ugu safarto waxay uga baahatay dhaqaale badan sanado badan ayay sii shaqaynaysay oo waxay shaqaynaysay wixii ay kaga bixi lahayd dalka Kenya maadaama marka ay haysto baasaboorka Kenya oo weliba dee waxa weeye intaasoo jeer musuqmaasuqo qarash badan kaga baxay waxay qaadatay baasaboorkii dhaqaale fiican markii ay urursatay waxay u duushay wadamada laatiinka halka waxa weeye marka Mareykanka derbiga laga dhacayo dee la sii maro taariibta noocaasa ayay gashay Mareykan bay tagtay ilaahay uu ku guuleeyay safarkii dheer ay gashay sharci baa la siiyey si wanaagsan bay u shaqaysatay xiriirkii qoyskii inankeeda hayay ayay soo raadisay xilliga waxa weeye ay soo raadinaysaa waa imika dhowr iyo 10 sano markaa kasii maqan tahay dhowr iyo 10 sano ayay kasii maqan tahay marka ugu yaraada inankeeda imika waa ilaa 18 jir 19 jir meelaha qoyskii way soo raadisay way la soo xidhiidhay waxaa looga dhaartay in inankeedii lala hadal siiyo markii uu geysay ilmo yar buu ahaa hooyadii waxa weeye hadii laba ku roon yahay si fiican uma xasuusan karo uma sixi karo markiiba waxaa loogu sheegay hooyadii inay dhimatay hooyada way dhimatay dee ninkii aabbaa u ahaana dee aabbuu yahay sidii aabbo u yahay hooyaba inaanu lahayn ayuu isu yaqaanaa reerkiina gabadhii way takooreen iyadoo weli markan way imakay takoorayaan isla waqti xaadirkan joogno wey Mareykankay joogtaa islaantii bay la hadashay odaygii ma nool abtigeed ahaa islaantii bay la hadashay ninka laftarkiisa inanka dhalay bay la hadashay hablihii bay la hadashay walaaladii kale la hadashay ehelkii kale waxa weeye abtiyaasheed ahaa ee deegaanadaas joogay ee ay soo xidhiidhin karaysay xidhiidhisay muddo ilaa 2 sano ah waxay bariyeysay in inankeeda loo sheegay inay nooshahay lala hadal siiyo haddii laba ku roon yahay la baro ayay 2 sanadood bariyeysay waa looga dhaartay waxaa laga yaabaa reerka caynkaas samaynaya ee hooyada iyo inankeeda kala fogeynaya ee markii horena waxa weeye tacadiga iyo dulmiga intaa laga u geystay imika inay maqlayaan weliba ay isgaranayaan inantu waa qof aad u xusoonaysa waa qof tixgelinaysa waxa weeye dadka ay familka yihiin waa qof diidaysa waxyaabaha soo maray ee farxumada ah in social media ay wada gaadhaan oo ay maqlaan oo ay wejigeeda intii la soo istaagto meelaha waxa weeye TikTok iyo Facebook ayadu waranto oo ay reerka magacooda sheegto oo iyaduna ay samcadare isu soo jiido reerkan ay samcadare isu soo jiido ay aad uga fogaanaysaa waad aragtaan dadka dulmiga noocan ku dhaco kale waxay soo istaagaan media cidii dhibka u geysatay toos bay waxa weeye u sheegaan Soomaalidana hiil bay ka helaan laakiin iyaga laftarkoodu dee qofkaasi waa qof ceeb u lahaa faafiyey inantaas anigu wejigeedu jiniyeysa ay u eg tahay maarag waxaan ka wada hadalnay waa telefoon sida daacadda ah ee ciibka silinka ayay igu warantay xogteeda oo dhan wax ku saabsan magaalada ay joogtay halka markii hore ka tagtay way sheegtay balse way uga codsatay inaan cidna la wadaagin waxa kale aan ila wadaagina iyaday private yihiin inankeeda iyada magac ula baxday magacii waa laga bedelay oo magac kale waxa weeye loo bixiyay isaga waxa weeye warkaasi inuu gaadhay in kale ma oga si kasto waxa weeye ay isugu dayday ilmaheeda inay ula xidhiidho oo ay ugu qancisay inay hooyadii tahay oo ay nooshahay waa looga dhaartay oo waxa uga dhaartay
reerkaa waxa weeye gurigooda ay ka shaqaynaysay ee weliba ehelkeeda ahaa ee kijada seexiyey ee halkaa ku kufsaday ee nolosheeda waxa weeye mugdiga geliyey ayaa maanta oo ay ilmaheeda iyo waxa weeye iyadoo nolol fiican ay haystaan oo ay wax walba waxa weeye u qaban karayso looga dhaartay ilmaheedaas inay hesho oo lala xidhiidhsiiyo intaas wax reera may samaysan guur may samayn waxay ku fakaraysay sidii waxa weeye ay nolosha adag uga gudbi lahayd ilmaheedaasna waxa weeye ay mustaqbal fiican ugu soo samayn lahayd may suuro gelin oo ilaa imika waxaa lagu haystaa ilmaheedii bannaanka loogu tuuray iyadoo caloosha ku sida ee 4 sannadood ay ciddada kula soo silcaysay ee xabuubta caanaha uga soo yuunaysay ee ay darxumada ku soo korisay ayaa maanta aabihii iyo ayeydii uga dhaarteen oo isla waqtiga ay ka tagtayba ilmaha lagu barbaariyey hooyadii inaanay noolayn oo ay dhimatay waa arrin murugadeeda leh sheergareeya kadinka ka geliya gurigaa warkaygaas ha gaadho haddii waxa weeye hooyadaa ilmaheeda loo fasixi waayo dabcan waxa weeye marka ay sheekadu gaadho way isfahmayaan oo way isgaranayaan haddii hooyadaa ilmaheeda loo fasixi waayo oo loo sii day waayo ceebtoodoo dhan bannaanka imanaysaa waa ceeboobayaan reerkaas inantaas saasay idinku turaysaa saasay weli idiin qadarinaysaa u sii daaya haddaad dad islaam oo ilaahay ka baqaya tihiin ilmaheeda aad ka fogayseen ee aad ka dheerayseen isaganaad hooyo la-aanta dhigteen u fasaxa soomaaliyey idinkuna u sheergareeya oo gaadhsiiya aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu